saxafiga eeday qarankiisana anigu Somaliland waxaan lagu sheegay 13 sano meelaha san joogay saxafada intiiba waan eeday anigu qoomamka iga gaadhay cid kama gaadhin qaran baa laygu dulmay shaqaa laygu dul wax kastoo laygu sameeyay waxaase ugu daran meeshaan hanaan gobonnimo iyo hadiyad ka eegay haf miyaa la idhi xayd sidaan ahaan ku dhayanayo meeshaan xukuumadda kulmiye ka eegayay sharaf dhuumashaa naga gaadhay dhirbaaxaa naga gaadhay dhibaataa naga gaadhay mooral xumaa naga gaadhay kibir baa naga gaadhay aniga shaqadaydii hore hoon kibir TV iyo ee horena ciddii godobta ka gashay horaan u sheegay Cabdikariim Maxamed Iid buu ahaa ninkii Farxaan Xaaji Cali u tagay naga eriyay shaqadaas ilaahay baan ku xawilay waa dhaweydna wasaaradda beeraha oo magaceeda iga yaalay 19 sanadood cigaal ayay qoray Allah u naxariisto markii uu ka tagay madaxtooyada kii dawladii khiyaale nagaga xishootay ee wax loogayaan ku sameeyay ee tii siiraayo dawlad weyn baa heedan nagaga xishootay tii aan ugu wax qabadka badnaaye aan ugu taageerada badnaay Muuse Bixi ayay iga iriday inteena balka warram Ahmed Muumiseed oo xil bilaash ka dul dhacay oo wadani ahaa ayaa anaga sida kabaha noola dul maro naga iriye shaqada liiskii bayrolka shaqaalahan oo laga saar Farxaan haybu u diray Farxaan oo iga tuuray waxa la yiri dawladdu caaya war bal ilaahay cilmigiisa reega ya maxaan ku caayaan idhaano saxaf baan hay haddii wax lagu dhaleelo iyo haddii wax laga sheego macayba suuqii waxay doonaan ku hadlayay ningad baan kaga soo saaray iyo laag baan kaga soo saaray taayir reelada suuqii hay kulmi ma isaga cid ay ku xidha tiina albaabka laga saar waxaana ku suntan tahay xukuumadda madaxweynaha Muuse Bixi gudubta ugu xuna TV-ga laga eriyana hadduu dhiig leeyahay uu joogaba dalka isagaan u galay qodobada liigu eedeeyay ay ku sameeyeen buuha waxa loo sinaada saxaafadda aan lahaa oo Xamse Cali Bulbuliyo wadanina ay siinayeen qolada kaybilku 7 daqiiqo anigoo kulmiye ka shaqeynayo warka Muuse soo qaadana 3 daqiiqo sameeyeen markaan ku war loo sinaadaba liigeeri Muuse taageerta tii kalena Ahmed Muumiseed wuxuu iga geeriyay kulmiye dawladda raayada oo soo shalaaba kulmiye yibi wala beed wastadan daasada marwada sidad nin walba wuxuu doono sameeynayo halkaas ma tuurtid ma sheegin Farxaan aadan haybe xurmo balaaran baan u hayaa isaga loo qoray waraaqda isna uu iga saara balka waraba ya maantana leeydi baa laga saaraya oo nin baa isna waara soo goosta la yiraahdo Baghdadi Djibouti iyo jug soo dhacay iyo Baghdad meeran baa meesha socda isna wuxuu yiri leeydan ka xidhaya asa yuhibbuna khayran fa huwa sharru lakum asa an takruhu shay'an fa huwa khayrun lakum anaga badgalay xukuumad jacayl iyo dal jacayl iyo madaxweyne jacayl iyo kulmiye jacayl iyo ba ayaa halkaana dhigay dadka ka bahlan la dulmaray sida uu sheegay muxuu ahaa garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka Hargeysa Baghdadi wuxuu soo diyaarsaday imika caawa ama habeen dambe inuu igu xidho Hargeysa isaga bankiya isaga lacagta umada haya isaga laaluushaya isaga weyn ognahay waddankeena cadaalad ul maanta ugama tageen hadii cadaalad ku ogo hoon doodi lahaa Baghdadina uu doodi lahaa laakiin xukunkay waa si go'an yahay marka waxa weeyaan kaasi uga saaray hoon kabil TV ga saaray kan kale Ahmed Muumiseed qoladan Muuse Bixi waxay iga saareen wasaaradii beeraha kana leeydho iga xidhaya marka haddaad nagu aragtaba maanta dabadeed Baghdadi
nagu xidh maahe xabad nagu dhufo annaga isku ilowna meesha annaga qaran moodnay annaga jacaylna qaaday wallaahi inaan cimrigaana ku gaadhneen kuna dhexnaa naabneen haddaan afarta calana geeska Afrika ka lusha mid isaga tagno saaynamadayda laakiin kan soos dhigay baan koos dulma shacabka Soomaaliland waxaan u sheegayaa warba joog iyo guda joogba idaacadda radio halgan way xidhan tahay waxaanay u xidhan tahay Baghdadi mise Jabuuti waa ninka banka gacanta la helay sidoo doono u galay saxaafad madax banaanideedna halkaas kugu dhimatay qaran loo wada sameeyay halkaas ku dhintay dastuur ilaalintiina halkaas ku dhimatay laakiin aniga hadduu helo haba xidho saakan uga baxay waa warkii ugu dambeeyay Soomaaliland ku qabto ka kalena meel kale ka soo arki doontaan hadii la yiraahdo wabillahi tawfiiq aan abdi ille radio halgan Hargeysa